بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود مدحوينها كونفور قلبي مدن عبد العزيز مدحوينها دولة دقانك الصومالية مدن مصطفى وزيرك قاشان لقا يوفدق وهقامينيو دلك كينيا وزير ذا هير فدرال إثيوبيا قدوميها برلمان بنتلان وزير ذا يحلبان ذا دولة فدرال الصومالية وزير ذا يحلبان ذا بنتلان وزير ذا يحلبان ذا كونفور قلبيت جناعسة ذا مرتشرف تكلا عد كستا أو هلك فردلا أو أن حسين أن اللاوي دمان كسو قيب قلياشا ايوور ريان اسمدا علمدا يعيد والبو مانتا هلك جوكتا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا هذا البدن هلكا ايما فرنا وحا اي فرن وكلي انا نمهد عليو دمان انت كسو قيب قشي حفلدان لغو فريي وجهي كواد اي دكدا قرعد waxaan kaloo rabaa halka inaan ugu mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay af iyo adinba oo ugu horeeyo madaxweynihii iga horeeyay Cabdiwali Cali Gaas ganacsatadii ismadii wasiiradii fikirkaas saldhigga u ahaa runtii waxay u tahay Puntland sharaf isku day weyn bay ahayd waxa saldhig u ahaa inay dekedan maanta hirgasho وأنكي دولة بنتلان قادتي iyo hantidii ugu horeysay oo dawladda Puntland ay gelisay in lagu bilaabo ganacsatadii ku dhiiratay iyo guddigii hawshaas fikradeeda riixayay oo runtii maanta sharafta u weyn ee iyagu leeyihiin ee wadaagsan dekedani ahmiyadeeda intii ugu horeysay sheegtay waxaan rajaynayaa hadafka laga lahaa oo ugu muhiimsan oo ah inay ka qayb qaadato deganaanshaha iyo amniga geeska mashaakilka u weyn ee dadkeena haysta oo laga soo galo waa dhaqaale xumida iyo saboolnimada dekedan waxay abuuri doontaa kobcin doontaa dhaqaalaha waxay kor u qaadi doontaa isdhexgalka iyo xiriirka ganacsiga waxay abuuri doontaa in dadka wax la isugu daro ay wada wadaagaan si ay u noolaadaan waxaan uga mahad celinayaa madaxda geeska Afrika ee ka soo qayb galay oo runtii waqtigooda soo bixiyay waxay noo muujiyeen inay diyaar u yihiin inay Soomaaliya wax la qabsadaan oo wax la qabtaan sharaf weyn bay noo tahay haddaan nahay Soomaali inaan dalkan u jihayno inuu noqdo dal xasiloon oo ka qayb qaata deganaanshaha iyo horumarka geeska Afrika iyo isdhexgalkiisa waxaan u nahay ubuuc waxaan rabaa inaan si gaar ah uga mahad celiyo madaxda dawladda federaalka ee Ethiopia iyo madaxda dawladda deegaanka Soomaaliya ee Ethiopia oo runtii muddadii ay socotay iyo ka horba xiriir iyo ganacsi hore aan lahayn ka sokow naga ogolaaday inay dekedan ay noqoto meel ama corridor kale oo cusub oo ku soo biiray Ethiopia waxa dhamaaday Turdibi customkeeda oo labada u dhaxayn doona insha Allah dal waxaan rajaynaynaa inuu ganacsiga iyo horumarka uu qayb ka qaato